kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa xaaladda kacsan ee u dhaxaysa TPLF iyo waliba dawladda uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed kadib markii uu isugu yeeray waxgaradka ganacsatada iyo waliba siyaasiyiinta ka soo horjeeda nidaamka ay wax ku wadaan TPLF waa nimankii indhawaalaba dagaalka xoogan kula jiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya haddaba shirkay ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo qodobada ka soo baxay dhanka kale TPLF oo ku hanjabtay hadal la yaab leh xabad wanaafka ka bixinayeen daawadayaal ku qada dhigi doona barnaamijkeena dhanka kale xooga gafaanay iyo waliba jabhada weele ayaa dagaaladooda meesha ka sii wada inkastoo sirdoonka dalkaasi Itoobiya ay doonayaan inay colaad gaamurta ay sii dhaxdhigaan labada jabhadood ee ka dagaalamaya aan ilaahdee deegaanka Amxaarada iyo waliba Oromada waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qada dhigi doona Somaliland iyo waliba Itoobiya oo kala booday waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan maxaa ka soo cusboonaaday siideynta Abdiile xooga hor leh oo ka soo kordhay kadib markii dawladda deegaanka Soomaalida lagu wargeliyay in aysan kaba hadli karin gabi ahaanba cid ku sugan dawladda deegaanka Soomaalida oo teetan la siideynta Abdiile dhanka kale Abdiile maxaa ay dawladda federaalka Itoobiya ay ku wargelisay qorshayaal cusub ayaa soo baxaya ninkani wuxuu ka boqoli doona magaalada Addis Ababa isagoo u boqoli doona dhanka iyo magaalada Nairobi mise Turkiga ayuu u xayan doona mise magaalada Addis Ababa ayaa kulan khaas ah lagu leeyahay xog ayaa daawadayaal ka soo kordhay aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhanka kale afar gobol oo kamid ah dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dadkoodii xabsiga loo taxaabay kadib markii Abdiile la soo daajay sababaha loo taxaabay iyo dadkani falalka ay ku kaceen ayaynu sidoo kale daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena dawladda dalka Soomaaliya waa mid lagu magacaabo federaalka maxaa ay ka wada koonfurta Soomaaliya kasoo dhaliila xogan ay jeedinayaan waxyaabo fara badan ayaana halkaasi ishoos huwan kadib markii hotelkii lagu magacaabi jiray SYL la qarxiyay ka dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo si degdeg ah kaamirooyinka loogu furay xilli uu booqday xarunta nisaa ee sirdoonka dalkaasi aan ilaahdee Soomaaliya hadaba barnaamijkeena ayaa daawadayaal ku maqli doontaan hadduu rabeen waxaana barnaamijka ila daran doorin doona saaxiibkay Dr. Shido asagu inta badan indhaha ku haya dhanka Itoobiya Soomaaliya iyo Somaliland kama manaan doonaan barnaamijka si share gareeya saaxiibadiina la wadaaga si uu meel fog u gaaro ninka lagu magacaabo Dr. Shido waa soon horta waa bil Ramadaan dadka waxaan leenahay horta Ramadaan Kariim baan leenahay meel kasto ay joogaan subax walba Ramadaan Kariim maxaan ku dhayn la isdhaho magarasa la soo duceeyo waa bil Ramadaan horta way fiican tahay marka daawadayaashan horta waynu u ducaynayno waxaan leenahay Ramadaan Kariim soo dhawaadana leenahay intaasi waxa weeyaan waa bisha Ramadaan taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay naga aqbalo a'maasha wanaagsan ilaahay horta naga aqbalo wala soomaayay waa bil Ramadaan Itoobiya isdul taagi doono Itoobiya kulli wax ka sheegeedu anu waxaan aaminsanahay inayna dambiba ahayn ninka lagu magacaabo Shido waa kula qabaataas ha Itoobiya hadii la dhaho way burburtay way kala tagtay inkastoo war saxan aan soo gudbinayno hadii Itoobiya xageeda qorida loo tuuro maxaan ku dhahay lagu tuuro qodaxna loo dhigo ajir buba keel horta ruuxi saarsamay markii waxa weeyaan iyada nagu soo duushay anagu duulimaad dokument xogo yaro maamulana way noo malmaluuqday intaas marka waa dadka maxaan ku dhahay dhagasiyaasha baynu u sheegaynaa nimankii Tigreega ahaa waa kuwii beesha caalamku ay dhexdhexaadinayeen Tigreegi iyo dawladii uu hogaaminayay Oromaysnayd doctorkii Oromaysnayd dawladii Oromaysnayd waa tii la dhexdhexaadinayay shirki waa lagu kala kacay oo wala isku afgaran waay nimankii TPLF way boqoleen maxaa halka ka dhacay marka halka nooga wad aad baad u mahadsan tahay Cornel Faragodow markuu shirkii la isku afgaran waayay lagu kala tagay nin walba darintiisa uu laabtay xoogii TPLF ay ku laabteen magaalada Makele caasimadda gobolka Tigray qorshaha ay ku dhawaaqayaan la sugayeen uu yahay xabad oo kaliya maadaama wax kale ayna haynin TPLF ay qoraal ka soo saareen shirkaasi ayaa waxa soo baxday in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu isku yeeray wixii mucaarada ee TPLF ka soo horjeeday iyo maartay ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo dadka rayidka ah ee deganaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ayuu Abiy Ahmed xafiiskiisa ku casuumay Abiy Ahmed halkaasi kaamirooyinka muuqaalada laga soo qaaday odayaasha dhamaantood way hadleen waxay ka hadleen Abiy Ahmed hal waxna way ku taageereen wax badanna way kaga soo horjeedsadeen horta wuxuu yiri si wadar ah waa inaan u cambaarayn ficilada marka wuxuu kulminayaa dadkii siyaasad ahaan ee ka soo horjeeday TPLF iyo qaabka ay wax doonayaan qaabka ay wax doonayaan iyo
sida ay wax ku wadaan iyo nooca dawladda ay la jaalanti kareynayaan ee dawladdu cadaadinayaan ayuu Abiy Ahmed yaa u socon weyday marka Abiy dadkan markuu isku yeeray wuxuu yiri horta waa inaan horta aan si wada u cambaarayno TPLF waa inaan cambaarayno ficilada ay waday dalka Itoobiya ay ka wado waa inaan cambaarayno buu yiri halkii ilaa ninku asaga markaas asaga libax ka ah waa la cambaareeyay inayna TPLF waa inaan isla qirala yiri TPLF inayna wanaag Itoobiya wadin wanaag Tigrayna wadin taana waa inaan ayadana aan isla qirala yiri kadib ruux walba mikrofoonka lagu soo dhaweeyay dadka meesha ka hadli karay dhamaantood Abiy way eedeeyeen waxay sheegeen heshiiskii Pretoria ka dhacay dib u heshiisiintii iyo dib u soo celintii dadka qaxay Tigrayga inayna dawladdu wax talaabo horumar ah ka qaadin oo dhankaas dawladdu ay ku fashilantay sidoo kale waxay sheegeen inuu TPLF una talaabo fiican ka qaadin oo lagu cadaadinay maadaama gobolkaasi ay Tigraygu haystaan lana degeen ma artay talaabooyinka ay qaadayaanna ayna ahayn talaabooyin ma artay dadka Tigrayga u ron oo dadka Tigrayga ay colaad iyo ay u horseedayaan hunguri ayagu qabaan oo ah inay qabsadaan dalka Itoobiya wax walba ayagu xukumaan inuu ra'iisul wasaaruhu si dhab ah talaabo uga qaadan oo uu awood u TPLF uu ku baabiyo una waayna ka gaabs inuu jiro ay halkaas ka sheegeen dadkaasi waxay sheegeen in markii Tigrayga dagaalka lagu la jiray in si gaar ah isirsiifayna loo beegsaday adsoo dadkooda lagu beegsaday ma aragtay gobolada kale dalka Itoobiya lagu beegsaday waqtiga arintaasi ay taagnayn inuu Abiy wax garaba ayna ka helin laakiin maanta la joogo inay ayagu hadayeen shacabka Tigrayga adsoo ku noolaa iyo dadkii TPLF ka soo cararay iyo dadkii ma aragtay TPLF fikradahan ka soo horjeeday in ayna taageersaneen dagaal labaad oo ra'iisul wasaaraha garab ku siinayaan ay taana ay ugu sacabatumeen sidoo kale Fargodo waxaa jira laba generaal oo TPLF oo mid uu ahaa rag maqala laga soo qabtay odayaashii hore aasayaasha kamidka ah oo ayagana la siidaayay Jarmalnimo shalay oo xilliga kan Cabdi la siidaynay ayagana ayagana la siidaayay mid Cabdi maalin ka dambeysay la siidaayay midna waqtiga Cabdi la siidaayay waa laba generaal mid wuxuu ku eedeysnaa musuqmaasuq waagi adsaba laga qabtay oo musuqmaasuq buu ku eedeysnaa oo Abiy ay musuqmaasuq ninkaas ku eedeysnaa midna odayaashii hore oo laga soo qabtay maqalabaha waqtiga dagaalka oo laga soo qabtay ragay TPLF ka sabirtay iyo god laga soo saaray ayagana TPLF tirada ugu jirinba kuwaas waa hore la qayslaan taasiba u dhigeenba ayagana godka laga soo saaray ay shalay xuridoodii ayay dib u heleen oo mar kale shirki baa la dhax keenay ayagoo la wado oo odayaashii baa lagu sameeyay waxa la kuwi la laha cambaaraya TPLF ya waxa la odayaashana waa kuwan xuridooda dib u siinay ayaguna waa ka waynay barnaamijka qayb ka qaataan ayagana meesha la keenay marka qolyihii TPLF-ta iyo Abiy Ahmed mar kale ayay soo dhil qaadeen way kala dhintay meesha waa lagu kala dhintay TPLF waxay artay ayagoo la abaabulay mucaaradadoodii ayagoo dadka Tigray intii warbaahinta soo farsiinay eedeeyo dhaha Tigray way xun yihiin waa sidan waa niman ma artay dadka Tigrayga aan maslaxa u haynin waa niman baahan si wada jir loo dagaal barnaamij noocaas ka bilowday waxa aan sugnaa kaliya waxa waay reenka kaaraha yaa sugeynaa Tigray looma gali karo gobolka Tigray wuu xidhan yahay Abiy awood maanta ku taga male waxa gobolka Axmaarada ee laga duuli jiray wixii shacab joog wixii maleeshiya joog ciidankiisa si raaci jiray xuduudda Tigray 5 gees laga gali jiray ma jirayso faanay u xidhan tahay Axmaarada la dhaxmar kir oo dagaal kula jirta dawladda Itoobiya marka ninka Abiy